ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deynta xarigiisa. Waxaa halkan dee la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyaddeedii helay. maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1442 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay. ilaahay baan u mahadnaqayaa. laka alxamdu ya rabb hatta tarda walaka alxamdu idha radayt walaka alxamdu ba'da rida. ilaahay baan u mahadnaqayaa. mahadnaqana soo koobi kara. waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay. halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda. ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin. si gaara waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyey dhaliyey guddoomiyaha xisbiga waddani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyaddeedii helo. waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe oo isaguna sii deynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi aqbalaadda uu ka aqbalay inaan xorriyaddeedii helo. waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay-ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyaddeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynayay oo ku taamayey oo rajaynayay maruun inaan xorriyaddeeda helo. waxaa jira dad iyo aan la garanay oo dacallada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyn ii rajaynayay oo garab istaag weyn ii muujiyey intaan gudaha ku jiro. ilaahay baa kuwa og. ilaahay baa kuwa og. waxaan mahad celinayaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyey ee arrimahayga ka hadlay kuwa waddaniga hay-adda xuquuqda kuwa waddaniga sida